kadib markii aynu duubnay muuqaalkeenii ku saabsanaa calaamadaha lagu garto wiilka aan ku jeclayn waxaa igu soo cabaaday wiilal aad u badan waxayna igu yidhaahdeen ayuu gabar walba aynu la sheekaysano waxay inoo soo tuurtaa videogaagi waxaa lanagu yidhaahdaa meesha ka carar kadib markii aynu samaynay muuqaalkeenii kale ee ku saabsanaa calaamadaha lagu garto gabadha aan ku jeclayn waxaan fiiriyey kommentiyaasha waxaan arkay wiilal badan oo leh macalin waa run fikradaha aad sheegaysid balse way yar yihiin marka loo fiiriyo muuqaalkaagii kale kadibna waxaan arkay wiil soo qoray calaamado dheeraad ah oo ku sheegayo in haddii aad ku aragtid gabadha calaamadahan ay tilmaamayaan inaysan ku jeclayn runaantii waan akhriyey si fiican ayaan u fiiriyey waxaan arkay in calaamadahaasi ay yihiin kuwo aad muhiim u ah saa darteed waxaan go-aan ku gaaray inaan ka dhigo muuqaal gooni ah calaamadahaasi haddaba wiilashii xanaaqsanaa waxaan leeyahay videogan idinka ayaa iska leh xitaa fikradaha idinka idinka yimaadeen haddaba haddii aad doonaysid inaad ogaatid gabadha inay ku jeceshahay in kale waxaad ka fiirisaa 10kan calaamadood haddii aad ku aragtidna ogow inaysan gabadha ku jeclayn ee meesha كعرر أمل تألق وارتقى مثل النجوم محلقة. السلام عليكم وأتكم حسن تهيد دawashada muuqaalkan ku soo dhawow fikrad magacaygu waa Yusuf Sakiin calaamada koowaad waan mashquulsanahay haddii aad ku aragtid calaamada gabadhan waxay tahay inaysan ku jeclayn mar walba aad rabtid inaad la sheekaysatid mar walba aad rabtid inaad waqti la qaadatid waxay ku leedahay waan mashquulsanahay haday mar walba kugu badayso ogow gabadha inaysan ku jeclayn waa haday ku jeceshahay waqti kuma weyn lahayn Soomaaliya waqti way ku heli lahayd haddaba midna ogow waa mashquulsanahay macnaheedu ma aha in hal mar ayadoo mashquulsanahay kugu tirado mashquulsanahay inaysan ku jeclayn may waxay tahay in ay soo noqoto mar walba aad doonaysid inaad la sheekaysatid waxay ku leedahay waa mashquulsanahay mar walba rabtid inaad la hadashid waxay ku leedahay waa mashquulsanahay mar walba rabtid inaad aragtid waxay ku leedahay waa mashquulsanahay yani mar walba waxay kugu jawaabtaa waa mashquulsanahay mar walba waxaad aragtaa inay ka warwareegato la sheekaysigaaga inay ka warwareegato la kulankaaga inay ka warwareegato la hadalkaaga haddaba haddii aad midaan ku aragtid waxay daliil u tahay inaysan gabadhan ku jeclayn هلو ايه ورساتها قاعد ايام كوغو حيس waa mashquulsan tahay miya ana waxaan doonaa inaan kula sheekaysto waa igu soo celinay goorma igu soo celinay hadhow igu soo celida aad aan kugu xisay inaan kula sheekaystaan rabay waa igu soo celinay Soomaa waa hubta haye waan ku sugaa ma soo daahay mas hadhow haye waan ku sugaa igu soo cel calaamada labaad waan kugu soo celinaa hadhowna laguma soo celinayo haddaba haddii aad ku aragtid gabadha calaamadan inaad wacdid kadib markaad la hadashid waxay ku leedahay waa mashquulsanahay hadda kulama sheekaysan karo anaa kugu soo celinayo hadhowna laguma soo celinayo saa u sugays waqti ayaa kugu dhamaanaya kadibna waad wacaysaa waxaad leedahay maxaad igu soo celin weysa waxay u tiri waan kugu soo celinaa waxay ku leedahay waa run waxaan ku yiri waan kugu soo celinaa waa in looba iga raali noqo waa hilmaamay haddaba haddii ku aragtid calaamadan waxay daliil u tahay inaysan ku jeclayn ma doonayso la sheekaysigaaga ma rabto la hadalkaaga saas ayaa ka dhigaysa inaysan kala jeclayn inay kula hadasho inaysan kula hadlin waa laga mashquulsan yahay ee ma doonayso inay kula hadasho ee midaas ogow gabadhan kuma jecla haddaba haddii aad ku aragtid calaamadan meesha ka carar maxaad la soo kulantay ahayd meesha inaad iga sheeg bas aan way fiicnay calaamada saddexaad hadalka oo lagu soo koobo adi waxaa rabtaa inaad sheekaysid waxaa rabtaa inaad wax badan ka wareysatid waxaa rabtaa inaad waqti fiican la qaadatid balse iyada mar walba hadalka way kuu soo koobaysaa sababtoo ah hadalkaaga kuma soconayo sababtoo ah la sheekaysigaaga ma jecla sababtoo ah adiga kuma jecla calaamada afaraad mobilka aan hore lagaaga qabanin ama gebi ahaanba lagaa qabanin sidoo kale haddii aad ku aragtid calaamadan waxay cadaynaysaa gabadha inaysan ku jeclayn oo aysan xiise ku haynin balse waxaan rabaa inaan meeshan digniin ka bixiyo waxayna tahay sida calaamadaha kale oo dhanba waxaynu ka hadlayno ma ahan wax hal mar mise laba jeer mise saddex jeer amay qofka wuu mashquuli karaa telefoonka wuu ka fogaan karaa waxaa laga yaabaa inuu hurdayo waxaa oo dhan way dhici kartaa soo ma ahan laakiin waxaynu ka hadlayno waxay tahay in arrintan ay tahay arrin joogto ah mar walba qofka wuxuu ku leeyahay mashquul ayaan ahay mar walba waan kugu soo laguma soo celiyo mar walba hadalka waa lagu soo koobaya laakiin qofka waxaa dhici karta marmar inuu sidiisaba moodkiisa uusan fiicnayn inuu murug dareemayo ayaa laga yaabaa sadarteeda ka dhigayso inuusan hadli karin oo hadal badan uusan ku sheekeyn karin markaas oo kale waxyaabaha marmar dhaca anaga kama hadlayno waxaynu ka hadlaynaa waxyaabaha soo noqda waxyaabaha joogtada ayaynu ka hadlaynaa meeshaasi aad ay muhiim u tahay inaad kala saartid haddaba haddii aad ku aragtid gabadha in telefoonka aan hore lagaaga qabanin oo aysan arrintaan ahayn hal mar iyo laba jeer iyo may oo
ugu talagal ay tahay midaas se ku ogaanaysa ugu talagal inay tahay dee mar walba waay mar walba marka wacdid lagama qabanayo haddana qofka wuu ka maqnaan karaa haddii ay aragto kuguma soo celinayso dib laguma soo wacayo yacni hal mar saacado kadib maalin kadib hataa laguguma soo celinayo midaas waxay caddaynaysaa qofkan inuusan ku rabin inuusan ku jeclayn waayo way awooday haddii waqti ay u weysay saacadahaas oo dhan waxay awooday maalinta ku xigtay markay aragto inay kugu soo celiso ay ku weydiiso soomaan waxaad ka rabtay maalinta ku xigtay kale way awooday laakiin intaas oo dhan midaas waxay caddaynaysaa ihtimaam la-aan midaas waxay caddaynaysaa jecel la-aan midaas waxay caddaynaysaa inaadan xiise laguga haynin meesha haddaba calaamadda haddii aad ku aragtid waxay caddaynaysaa inaysan gabadha ku jeclayn calaamada shanaad hadalo macaan ficilo adag marka lagula hadlayo waxaa lagu gaarsiinayaa meel aad u sareysa waxaa lagula hadlayaa hadalo aad u macaan badan balse marka ay timaado ficilka waa ficil adag laguma ixtiraamayo hadalkaa wax qiimo looma yeelayo haddaba hadalada macaan waa inay ka turjumaan ficilo macaan sidoo kale haddii aad ku aragtid gabadha calaamadahan in hadalka lagu macaaneeyo balse ficilka lagugu adkeeyo ogow inaysan gabadhan ku jeclayn calaamada lixaad telefoonka oo mar walba mashquulsan sidoo kale calaamadan haddii aad ku aragtid oona ay tahay mid mar walba ah ha hilmaamin digniintaan bixinay calaamadahan oo dhan waa inay noqdaan kuwo mar walba joogta ah kuwo mar walba soo noqnoqda haddaba haddii aad ku aragtid mar walba adigaa wacdid telefoonkeeda oo mashquula telefoonkeeda oo mashquula telefoonkeeda oo mashquula ogow adiga inaan waqti lagu haynin waxaa laga yaabaa inay qof kale jeceshahay oo ay qof kale ku mashquulsan tahay sooma way dhici kartaa haddaba adiga laguma jecla calaamada toddobaad xaaladaada lagama wareysanayo markaad la sheekaysanaysid mar walba adiga unbaa sheekaynaya adiga unbaa mar walba ka wareysanaya xaaladeeda balse adiga xaaladaada iyo ma kala jecla see tahay laguma dhahayo xaaladaada laguma weydiinayo maxaa kugu cusub laguma weydiinayo ma khusayso intaasoo dhan mana kala jecla adiga unbaa waxaad ku haysaa see tahay xaaladaada iga waran ayada marna kuma weydiinayso xaaladaada marna kama wareysanayso wax adiga aad dareemaysa sidaa tahay sida ku nooshahay xaalkaaga marna lagama wareysan maxaad la kulantay laguma weydiinayo intaasoo dhan waa intaasoo dhan muhiim ma aha qofka adiga agtaada muhiimka ka ah ayaa waxaa jecesha inaad wax walba ka ogaatid inaad wax walba ka wareysatid soomaan xaaladiisa ogaatid balse gabadhan agteeda adiga muhiimka ma tihi saa darteeda xaaladaada ma kala jecla hadday ogaatid haddaysan ogaaninba saa darteeda kuma weydiinayso adiga xaaladaada waxay kaaga sheekaynaysaa iyada nafsadeeda oo keliya calaamada sideedaad mar walba waxay kugu dareemaysaa caajis markay kula sheekaysanayso markay kula fadhido oo aad wada joogtiin oo aad wada sheekaysanaysiin waxaa arkaysaa inaysan ku faraxsanayn inay dareemayso diiqad in ay meesha oo dhan iyo fadhigaas iyo sheekaysigaas iyo wax adiga aad sheegaysid waxaas oo dhan inaysan ku soconin sabab kuma soconayo qofka adiga sheekadiisa kugu soconayso waa qofka adiga aad jeceshahay waa qofka laabtaada ay rabto qalbigaaga uu rabo somaa qofka ayaad jeceshahay inaad la fadhiisatid la sheekaysatid la joogtid la hadashid maanta oo dhan haddaba haddii aad ku aragtid gabadhan markaad wada joogtiin inay kuga caajisayso markiiba ay inta fiirinayso ay ku leedahay saacadda mar walba ay fiirinayso ay ku leedahay waqtigii ugu dhammaadeen ma baxayno haddii mar walba islaan ku aragtid caajiska aad ku aragtid intaasi waxay daliil cad u tahay inaysan gabadhan ku jeclayn qofka ku jecel mar walba saacadda kuma fiirinayo qofka ku jecel marna kuguma dareemayo diiqad iyo caajis haddaba haddii aad aragtid in mar walba ood la sheekaysanaysid ay ku leedahay haye waan baxaya waqtiga wuu dhammaaday markaad la sheekaysanaysid ama isla wada joogtin ay ku leedahay haye ma baxayno oo ay dareemayso cariirigaasi ay dareemayso oo aysan farxad ka muuqanin ogow inaysan gabadhan ku jeclayn calaamada sagaalaad waa isku mid haddii aad ka maqan tahay iyo haddii aad la joogtid haddii aad la hadashid haddii aadan la hadlin marna laguma soo tabayo adiga marna laguma xiisayo haddii aad ka maqnaatid bil iyo haddii aad mar walba la hadashid waa isku meeshi waayo laguma jecla intaas ayaa ka dhigaysa inaysan marna kusoo tabin inaysan ku xiisin inaysan kusoo dareemin somaa haddaba haddii aad ku adatid gabadha calaamadan ah inay wax walba isku mid yihiin maqnaanshahaaga iyo joogistaada inay isku mid agteeda ay ka tahay ugu gabadha inaysan ku jecla haddii ay ku jeceshahay way kusoo tabi lahayd way kusoo xiisi lahayd daqiiqad iyo saacado kadib waxay jeclaan lahayd inay codkaaga maqasho haddaba ogow inaysan ku jeclayn calaamada tobnaad wax su-aala laguma weydiinayo markaad la hadlaysid adigunbaa iska hadlaya maanta oo dhan hadalkaaga wax su-aala lagama weydiinayo labada qof isjecel markay wada sheekaysanayaan hadalkooda su-aal ayaa kasoo baxaysa aniga markaan hadlayo hadalkayga su-aal ayaa kasoo baxaysa sidoo kale gabadha markay hadlayso su-aal ayaa kasoo baxay hadalkeeda soomaa waan weydiinaya sheekadu sidaas ayay kusii soconaysaa balse gabadhan way ku aamusan tahay wax su-aala kama weydiinayso hadalkaaga hadalka inay kula sii wado ma rabto maxaa ka dhigaya inaysan su-aal ku weydiin waxay tahay
tahay ma doonayso hadalka inuu sii dheeraado qofka marka uu wax ku weydiinayo oo hadalkaaga uu su'aal kaa weydiinayo wuxuu doonayaa sheekada inuu sii dheereeyo balse iyada waxay rabtaa sheekada inay soo xirto saa darteeda maanta dhan way ku aamusan tahay ma doonayso inay hadalka kula sii wado waayo way kugu caajisaysaa cas ay kugu dareemaysaa kuma faraxsana diiqad ayay kugu dareemaysaa hadalkaaga oo dhan gebi ahaanba kuma socdo marka hore haddaba markay ku aragtay calaamada oo aysan su'aal kaa weydiin xaaladaada hadalka ku hadlaysa wax su'aala kala soo bixin oo ku weydiinin oo aysan doonayn in hadalka kula sii wado ogow haddaba gabadhan inaysan ku jeclayn ugu dambaystii intaan waa